kulankan ay isugu yimaadeen culimada waaweyn ee ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal oo horkacayo Sheekul Beledka gobolada galbeedka Somaliland Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar ayaa shacabka Somaliland gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Boorame ugu baaqay in laga wada qayb qaato caawinta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Baladwayn ee isla markaasina dhibaatadu ay ka soo gaartay fatahaadda uu saameeyay webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad ogtihiin inuu inoo dardaarmay dadka muuminiinta inay isu damqadaan wa tacaawanu cala albirri wattaqwa ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kale nabiga kaleey salaatu wasalaam inoo dardaarmay in qofku hadii uu walaalkii kaalmadiisa uu istaago Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana kaalmadiisa uu istaagayo wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi anagoo ka damqanayna arinta waxaan u soo jeedinaynaa ummadda gobolada Awdal iyo Salal degan in ay walaalahooda dhibaataysan macna waxa weeyaan ay waxtaraan oo ay la damqadaan oo ay gurmad degdeg u fidiyaan kaas insha Allah ta'ala ay kulankan culimada maanta u daaran yahay ka sheegaynaa ama ka iclaaminaynaa walaalaheena reer Baladwayne ee dhibaatada fatahaadda wabigii uu haysto oo banaanka iyo buuraha dul taagan qaarkoodna ay guriyihii ku xaniban yihiin oo ummadda Soomaalidu dad badan oo kamid ah ay u gurmadeen iyo dadka muslimiinta ah la raba guud ahaan in loo gurmado ayaa waxaan leenahay walaalaheen inaan gurmado fidino ayaan codsanaynaa hadaan nahay gobolka Awdal culimadii gobolka Awdal iyo dadkii joogay oo Ilaahay si degdeg ah markaa uu arintaas uga saaro anaga u baryayna waxaan leenahay walaalaheen waxa la taro walaalaheen in wax la taro ayaan isugu nimid oo idin sheegaynaa in kastoo la habsaamay dibad iyo gudaba cid kastoo na maqlaysa marka insha Allah waa in laga qayb qaataa dadka muuminiintu meel kasta ay joogaan inay isu gurmadaan weeyi muuminiinimada ka sokow waa walaalihii Soomaaliyeed weeyi wadadkii markii dhow kal hore ama sanadkii hore gobolka Awdal kulkay ay duufaanadu ka dhaceen iyaguba inoo soo gurmaday in la damqanayay marka dadka muuminiintu meel kasta ay joogaan in isku damqadaan weeyi مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وحكى أثرها ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين marka way nooga sokeeyaan waliba dadkii kale islaamka ah dhibaatooyinka dhacaya way nooga sokeeyaan sidaa diraadeed culimada gobolka Awdal waxay maanta halkan isugu yimaadeen baaqay jeedinayaan oo u jeedinayaan dhammaan bulshada ku nool gobolka Awdal haday baac mushtariyiin haday beeraley yihiin haday xoolo dhaqato yihiin haday dadweynaha yihiin inay ka qayb qaataan mucaawanada loo fidinayo dadka walaalihiin webiga ku soo fatay gaar ahaan magaalada Baladwayne waxaan leenahay walaalayaal waa in loo kaco in isdaqad tiimaanta ugu fadli badneed ayay tahay kaarisada caynkaas oo kala ama xaadithada dhibaatada caynkaas oo kala dhacda inay dadka muuminiintu isaga gurmadaan waxaan lagu soo hagaajinayaa bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin walaalayaal kulli numberka waxa ka muuqan doona kulli waxa ka muuqan doona shaashadu ka muuqan doona marka muuqan doona soo qoraala laakiin hadii aan shaxta sheegay imika waxa weeye waa eber 6 eber 7 hal 7 marka la celiyo waa eber 6 eber 7 hal 7 walaalka waxtar walaalka ay soo bixi doona insha Allah Cabdirasaaq Umar Nicadawliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorame.